Hadiista dhan ee la soo ururiyo ee dumarka gudniinkiisa sheegi in la gudo sheegaya wax ka jira male daciif cilad iyo dhaawacyo kama marna oo macnaha looma tiirin karo way xadiiska noocaas ah subhanahu sallallahu alayhi wa alihi wasallam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا waxaan doonayaa inaynu idinla wadaagno dood maalmahan yara socotay oo ku saabsanayd gudniinka haweenka. marka doodaas xartu iyadoo naftigeedu waxbay iska weydiisay oo way rogrogtay oo deena wixii isla rogrogeen baynu dooni inaynu idinla wadaagno aragti ahaan. gudniinka gabdhaha asal ahaan waa iska caado soo jireen ah oo fog. taariikh ahaan waxaa loo celiyaa ilaa iyo nabi Suleymaan agtiisa waa la gaarsiiyaa. walibana geeska Afrika waxaan u malayn inuu asal u ahaa asal inuu ka yahay geeska Afrika gudniinka ama fircooniga lagu magacaabo ama wax kale. gudniinka geeska Afrika dumarka inuu ahaa mid aad u fac weyn oo daadiisu ay fogta. raadraac dheer bay u baahan tahay taariikhda in la aad loo sii akhriyo xilliyaha laakiin tabar badan uma helino ma siiyay laakiin waan tuhunsanahay in dhanka ay ka soo jeedo geeska Afrika gudniinka fircooniga ah annaga iyo Masar xoog aynu qaadan doono. deedna aynu halka ku sii faafinay wadamada kale malayn lama hubo waa mala awal ala kulli waa taariikh wixii taariikh kala hadii ay tahay waa in la sii daba galo. gudniinka marka ama dhufaanid miyaan raahna jufayn miyaan raahna awditaanka gabdhaha waa caado iyo cibaado ma ahayn. asal ahaan xadiiska loo daliishanayay in gudniinka dumarka la gudo xadiiska ugu weyn ee ugu caansan aadka loo hadal hayay waa xadiiskii Catiya ee ahayd ursi oo hawada goyn. xadiiskaasi waa xadiis daciif ah oo aan habboonayn in loo tiiriyo subhanahu sallallahu alayhi wa alihi wasallam. علماء بدنا ويكاه هذا شو محدثين ومحققين مركواه هوري يعني علماء ذي مت كم ذا وجوينا وحيري دليل عد يورسو قنطانا الله ما حيه جدنين كا هوين كم يعني أنا مثلا جدنين كا يمكن تجينا دليل عد يورسو قنطانا الله ما حيه جدنين كا سيدا وحيري عالمكي ويناء ولا قرنه سدحات أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري نكاوحيري ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سند يتبع. قدنين كان أتكشك هانيسان شيكشيكيسان ما تشيرو يرمال له علي ور أما حديث أما آيات هي أبتر أوليه هو حق الدين تأهي ما تشيران وانا عالم وين ولا جمر من علم جيسه هي كتبتي قريبه انت ولا جماعه waxa loo tiirin jiray inuu ahaa culimada Shaafiiciyada laakiin inuu san ahayn bay u badnaydo ruux madax banaan caalim madax banaan oo mas'alada sidoo uu arko ugu dhufto oo cidna daliilka uu raacaya. markaas wuxuu yiri ma jiro daliil cad oo gudniinka ku saabsan oo la hayo oo loo celiyo meel. ويقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار اسمه حيري ومع كون الحديث لا يصلح للاحتجاج به فهو لا حجة فيه على المطلوب. حديث كده ومعطية ها جودها إن يركبوها وذجوين الحديث كيها حديث كاسيكون ما هبونا إن لحجيسته ولو دليشده إن قبلها لقى شرعتك حلاشة يكل ليه
danta gudniinka eed ka leedihiin idinma fulinayo, xujo uma haysataan, daliil ma ah. sidoo kale shaarixi ninkii sharaxay kitaabka la yidhaahdo abi daud cawn almacbuud shams alxaq alcadiim abadi, isaguna maruu ka hadlayay axaadiistan lasoo ururiyey ee ka hadlaysa gudniinka haweenka وحديث الختان وحديث ختان المرأة روي من أوجه كثيرة وجيب بدن با laga soo ururiyo qolyo badan baa xadiiska soo sheegay buu yiri وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة dhammaantoodna waa ضعيif oo way ciladaysan yihiin oo way dhaawacan yihiin لا يصح الاحتجاج بها كما عرفت. isna wuxuu yidhi axaadiista dhan ee lasoo ururiya ee dumarka gudniinkiisa sheegi in la gudo sheegaya wax ka jira ma leh, daciif, cilad iyo dhaawacyo kama marna, oo macnaha looma tiirin kara weeye xadiiska noocaas ah subanaha sala allahu calayhi waalihi wasalam. alimaam ibnu cabdilbir fi الtamhiid isna wuxuu yidhi waladii ajmaca calayhi almuslimuuna أن الختان للرجال. مسلمينtu waxay isku waafaqeen guditaanku inuu rag kaliya un leeyahay, rag un in la gudo mooye ma hayna wax kale weeye warkiisuna halkaas ku dhamaaday. marka saddexdaa culimo ee waaweyn ee qarniyo hore noolaa in laga maarmin cilmigooda sinaba ee marjicna ah min maraajic alculamaa, minaa culimada waaweyn ee loo noqdo kutubtoodana ka mid ah, intuba waxay isku raaceen iyo kuwo kaleba inaan hadda halkan ku haynin, waxay isku raaceen axaadiista lagu sheegay gudniinka gabdhaha kulli inay yihiin baaba. ibnulmundir baa ugu weyn, isagu dee qarnigii saddexaad buuba noolaaba, dee waaba xilligii nebiga agtiisa isaa ugu dhow, intan kale gadaal ka timid iska daa warkooda wax badan. marka ninkan oo qarnigaa noolaa ibnulmundir isagu warkiisa wuu soo koobay laysa fi lkhitaani khabrun yurjacu ilayhi walaa sanadun yutabac. meel loo celiyo male, gabar guditaankeed ma hayno. kulligiina waad ogtihiinba dee meel lagu guday caaisha iyo nebiga gabdhihiisii iyo maxaa layahay nebiga xaasaskiisii, saxaabada gabdhahoodii meel lagu guday anu soo arki waayey. kolley idinkuna waad ku baadi maqan tihiin baan rajaynhayaa, oo idinka inoo sheegi doono haddaad soo heshaan. ma jira marka gabdhaha meel lagu gudahayay iyo meel laisku faray guditaankooda. inta badan laakiin waynu haynaa ragga axaadiistooda waa la heli. xasan iyo xusein baa la guday iyo waad maqli nebiga caruurtu awowaha u ah, laakiin faatima iyo ruqiye iyo ma helaysaan. soo hela haddaad soo heshaan khayr allah ina siiyo, ma soo helaysaani. marka gabdhaha guditaankooda culimada waaweyn baynu uga gudbaynaa. xadiiskii ay daliishanahayeenna waa ka kac, wax ka jira ma leh. in loo tiiriyo subanahana waa waxaan habboonayn. cadkaa yare xalaasha ah ee la isugu wada tegahayo, ilaahay mar uu qur-aanka noogu sheegay ibliis inuu yidhi insaankan waxaan amri doonaa oon u qurxin doonaa inay dooriyaan abuurka ilaahay. oo abuurka ilaahay see bay ku doorinayaan? waxay jari doonaan buu yidhi dhagaha xoolaha, way kitfi doonaan, way kitfayaan, way gogoyn oo way dulduleelin. walaaamurannahum falayubatikunna aadaana alancaam walaaamurannahum falayugayirunna khalqa allah. kol haddii la diiday in dhagaha xoolaha aynu dhaqanno in la jarjaro oo la gogoyo, uu ilaahay sidaa uga hadlay oo uu ku dhaleecaynayay ibliisna uu ku dhaartay inuu dadka baadiyeyn doono, lumin doono, isagoo u maraya qurxin, una qurxin doona ayay dhagaha xayawaanka goyn doonaan. dhagaha xayawaanka in la gooyaayey ma banaana, dhagahooda oo la jaro, sankooda oo la gooyo, waxaana qur-aanka uu tilmaamayaayo waa dhaqan ibliis weeyaan. kolkaa dhaqan ibliis haddii uu yahay waxa kan oo xoolihii lagu diiday inaad jajarto, maxaad u malayn insaan uu ilaahay karaameeyey oo cadkii ugu muhiimsanaa ee taranka haddii la isugu tago la yidhaahdo
hala jaro hala gudbo oo shaqo laga dhigto oo deedna la yidhaahdo waa sharci alle iyo nebi in xubinkaa laga howlgaloo la jarjaro hawl adag wey. xoolihii buu ilaahay ilaalinaya uu leeyahay dhagaha ka jarina xoolaha ha gogoynina. almuthlatu sidoo kale nabiga wuu diiday in insaanka iyo xoolahaba lagu sameeyo suurad xumayn. insaanka iyo nool in cad laga gooyo hadba cad, sanka laga jaro, bishimaha laga jaro, dhagaha laga jaro. kol haddii xoolihii lagu diiday, insaanka nolol iyo geeri toona ma taaban kartid oo ma jari kartid. xubnihiisa waa kaa mamnuuc, waana kaa xaaraan inaad jartid. kol haddii saa loo ilaaliyey xoolihii lagu diiday inaad ku toog barataan ood ka dhigataan hadaf ama aad dhagahooda jarjartaan, karaameyn la karaameynayo noolahan, insaanka maxaad u malayn kolkaa? insaanku wuu ka karaamo badan yahay. laqad khalaqna alinsaana fi axsani taqwiim. insaanka sidii ugu qurux badnayd ee ugu toosnayd baynu u abuurnay. wasawarakum fa axsana suwarakum. ilaahay wuu idin sawiray oo idin hagaajiyey oo idin suureeyey oo hab qurux badan oo joog iyo jamaal bale buu idin sameeyey. cad walba uu abuuray oo jirkiina ka mid ahna oo cad la soo iloobay ma aha oo uu alle ilmaamay. laa yadiru rabbuka walaa yansa. rabbigeen waxba ma iloobo, waxna kama tago. laakiin waynu qurux badan nahay siduu ilaahay noo abuuray. marka kolka dadyawga fadhataysanaya ee kitfaya cadka xalaasha ah ee gabadha ku yaal, waxaynu ka fahmaynaa ama ay u eg tahayba inay leeyihiin abuurkii alle uu abuuray waxbaa ka yara khaldan. intan inuu soo raaciyo ma ahayne inuu soo gooyay ahayd kolkuu abuurayay. ilaa intaa in la eg inuu jaro oo deedna isku duwo. intaana waa faragelin abuurkii alle la faragashtay. xuduudii alle, abuurkii, doonistiisii iyo rabitaankii alle uu sameeyey baad idinku leedihiin ilaahow dee halkan sidaa aada yeeshay. show islaamaha nagaa dhaama inay codkaa jaraan. marka waa in laga digtoonaado wey, abuurka alloo la farageliyo. haddii aynu niraahno xadiiskii ahaa umu catiya, ashimii walaa tunhiki, ursii oo ha wada jarin, xadiiskii ah haddaynu ka dhigno siduu yahay oo macnaha inuu yaraa macnaha inay cuskadaan qolyaha daliishanayay, waxaynu leenahay kaba soo qaadba inuu ahaaba wax iska banaan saad sheegteen, wax iska banaanaa. deedna waxaynu gelinaynaa qaacidadii iyo xaarkii usuuliyiintu ay lahaan jireen ee ahaa sadu dharaa'ici, in la awdo jidadka iyo wadooyinka ku geynaya meel hoog ama meel xaaraana kugu ridaya inaad qaadid wax kuu banaanaa asal. ibnu taymiya mar uu kitaabkiisa ku maray wuxuu yihi laakin saarat fi curfi lfuqahaa'i sadu dharaa'ic markuu ka hadlayay cibaara cama afdat ila ficlin muxaram. waa hab ku geynaya, kuu kaxaynaya inaad samaysid wax xaaraana. aynu kaba dhigno inuu sunno yahay say sheegeen. sunnadii marka waxay kuu geysay inuu insaan naftiisii ku waayo markii la sameeyey waxa kan. ama insaan baa u dhiig baxay, ama insaan baa si khaldan loo galay, ama insaan baa si baas oo inkaaran loo jarjaray gabadh cadkeedii, deedna way dhiig baxdo way u dhimatay. taarikh ahaan waad helaysaan inta dhimatay ee go'day, inta ku rafaadsan ilaa hadda waad garanaysaan. nin walba ehelkiisa iyo inta ku hareereysan buu qisooyinka ugu xanuunka badan ee gabdhaha lagu sameeyey uu ka helayaa isoon meel kaleba aadin. meel kale adoon warbixinba u doonan, haddii aad buug iyo qalin qaadatid oo ayeydaa kasoo bilow iday noosha,
hooyada, habaryarta, eedada, qaraabada, intaa una dad ku noqnoqotood ka soo ururisid dhacdooyinka dhabta ah ee la marsiiyey iyo intii usoo taagnaayay, intii u go'day, intii u naafowday, intii u dhali weyday, ilaa inta hadda la balanbalaysa. kolka cadkii yaraa ee sunnada ahaa haddii uu kuu geynayo insaan dhan in la kharibo, sow xaaraan miynaan ku dhicin kolkaa dariiq yaroo sunno ah. culimada markay meelaha marmarayaan sadu daraaci wax badan bay u adeegsadaan oon macno badan lahayn. meelaha qaar tusaale waxay yidhaahdeen mancu shaabati kamanci shaabati min alkhuruuji liljamaacaati. gabadhii gashaantida ahaydee xaragoonaysay quruxda badnayd, gabadhii gashaantida ahayd inay jamaacaadka aado soo tukato waynu u diidnay si aynan ragga u fitnayn, inkastoonan ku qanacsanayn tusaalaha kan. laakiin haddaynu u qaadanay say sheegayaan wuxuu noqonayaa in gabadhii gurigeeda iska joogto si aynan u fidnaynin ragga shahwada indhaha ku wataya gacmaha. kolkaa gabadhii inay masaajidka aado wax u bannaan buu ahaa, laakiin waxay keenaysaa bay dhaheen annagoon ku waafaqsanayn inay gabadhii ragga ka fasahaadiso, ay macnaha fitnayso. fitnada marka in la sameeyaay waa dembi, deedna dembigaas intii ay ku dhici lahayd gabadhu waa inay gurigeeda joogtaa. annaguna waxaanu leenahay intii gabadha jirkeeda ay dhiigbax iyo xubin la kharibo oo xaaraan ah lagu dhici lahaa, hal iska daaya kan yare aad ku magacaawdeen sunnaha. asal ahaan in sunno la yidhaah anigu aada uma waafaqsani, iyo xartuba ma waafaqsana. waxaan leenahay indu iska caado jirtay un u daaye. marka tusaalahaas way u diideen gabadhii gashaantida ahayd ee masaajidka tegaysay si raggaysa u fidnoobin. saasoo kalena leenahay gabadha sunnadan aad leedihiin ka daaya si aan loogu dhicin xaaraan kale oo ah xubinkiioo la baabi'iyey, insaankii alla karaameeyey, wax uu ilaahay idiin daray nebina ma ahayn awalba. sidoo kale ka xufri laabaari fi ariiqi lmuslimiina, inaad wadooyinka la marahayo ceelal ka qodataan. ceelka qodashadiisu waa wax iska banaantay soo ma inaad qodataan ceel, laakiin haddii ceelku aada wadada ka qodataan xoolihii baa ku dhammaanaya, dadkii baa ku dhammaanaya. saa marka xaaraan buu idin keenay, xaaraan buu idin geliyey. marka sidaan xaaraanta ku dhicin ceelba ha qodanina. waad fahmaysaan baan u marin tusaalayaasha si fiican. sidaa darteed baan leenahay annaguna cadkan xalaasha ah ee tiraahdeen sunna la samayni si aydan ugu dhicin xaaraan oo cadkiiba aan loo kharibin, iska badaayade waa sida. faqad manacuu kadalika mubaasharata alxaa'idi maa bayna asurati waalrukbati. gabadhii xaydka qabtay sidoo kale waxaa la yidhi yaan galmo lala samaynte. marka galmo inaad la samaysaan waa shay xaaraana qof xayd qaba siday ayaduhu tilmaamayeen, laakiin inay wixii ka horeeyey galmada samayn karaanna waa wax u bannaan dee. laakiin si aydan xaaraan oo ugu dhicin oo galmo u samayn qof xayd qabaay galmo aydan isla samaynin, waa inaad ka fogaatid wixii kuu banaanaade. muxuu ah waxaa kuu banaanaade istimtaaci, raaxaysigii kore, si aadan ugu dhicin xaaraan. sidaasoo kale marka yaynu anaguna leenahay si aydan xaaraan ugu dhicin cadkan aad sunnada ku jaraysaan ka daaya, iska daaya si uusan dadka ugu horseedin dariiqaa inkaaran ee lagu soo balanbalay. gabdhaha waraysta iyo hooyooyinka iyo ayayooyinka, hada waxaan u malayn waa dhaqan ibliiseed asal ahaan, waa isagii kusoo dhaartay dee wala aamurannahum fala yugayirunna khalq allah. waan amri doonaa, oon fari doonaa, oon ku waswaasin doonaa, oon u qurxin doonaa inay dooriyaan abuurka alle. abuurka alle la dooriyey waa maxay? dee waa cadka xalaasha ahee la yidhi kuma habboona inuu halkaa ku yaallo, meel khaldan buu alla dhigay. cadkaasi waa inaan jarnaa. ilaahay ma cad fitna ah buu dadka ku dhex abuuray oo kolkiiba haddii meesha uu ku yaallaba khalaas sidii la faafiyey de
sababta loo jarayo culimadu markay ka hadlayaan ay sheegayaan waxaa weeye waxaa la joojinayaa gabadha shahwadeedii. shahwadu waa dhakada la yidhi, dhakada wey, dhakada ee xubnahani waa kaalmeeyayaal, sidaa waa inaad u ogaataan. marka maxaa loo jari? insaan buu ilaahay karaameeyey, caqli iyo garashu ku waajibiyey, wixii u banaan wixii ka xariman ma uu garanaya. ma aha cad la dhahay hala jaro ama hala dhufaano ama hala kitfo ama hala. tusaalaha sadu daraaci marka wadyaro fahanteen waxaa ka mid ah isna inay manacuu qard aljawaari aw qard aljaariyati. qard aljaariya in gabar gashaanti ahoo baahan daynku weydiisatay aada siisay. tusaalayaasha wadaadada leh soo guuriyey raalli baad ka ahaanaysaan. gabadhii hadee bahasho dhanta ilan cad gabdheed baan ka hadlaynay, iyagaynu u badinayna tusaalahana. tusaalaha wadaadada waxay leeyihiin gabadha in wax la deymiyo waa wax banaan gashaantida ah, laakiin waxaynu ka yaabi inay kuu geyso ma garan inay gabadhii intay bixin weydo ay meelo kale bahashii kaala dhacdo oo jirkeedii u dhacdo. marka saa darteed waxba ha deymin baa gabadhii yarayd gashaantida. marka tusaaluhu asalaha kuma qanacsani anigu, laakiin tusaalaha waan idin sheegayaa un de manaha waxyaabahaas iska yara sahlan bay ku xarimeen, maxaa la yidhaahdaa, oo laga doodi karo bay ku xarimeen in ay u sameeyaan wax la yidhaahdo sadu daraa'ic. kalmanci min zaraacati alcinabi khashyata alkhamri. in ruux beer lahaa oo beerinaya canabka laga joojiyo maadaama ay xaafadii ku bateen iyo agagaarkii tuulada niman khamre ka samaysta canab kastoo soo go'a oo deedna iibsada canabkii oo dhan oo khamre ka sameeya. saa darteed idinkii canabkii markaa inaad beertaan ma aha sanadkaasood joojisaan weye ama aada iska daysaanba maadaama khamre laga samaysan doono. war waad garateen soo maha tusaalayaasha. sidaa darteed sunnadani gabdhaha lagu sameeyey waxay inoo horseedaysaa oo ina geynaysaa dariiq xaaraan ah. insaan dhan xubintiisii inaan burburino oon baabi'ino, hadduu doonuubu u dhintayba ama dhiigbax ama xanuun joogto ah. tan iyo waagii la guday ilaa hadda oo 60 jir iyo 50 jir yihiin ay ka kicilaayihiin. marka sadu daraaci waa inuu halkaas aynu u gelaynaa oon leenahay waaba xaaraanba kolkaade. sadu daraaci markaan ku kaxayno wuxuu noqonayaa waxaan sunnada lagu sheegay inuu xaaraan gelayo. culimmadu intaa way ogtahay, idinna waad ogtihiin. xartu waa niqaashay waxyaaba ay ka samayn hayeen buu ka mid ahaa. xubinta taranka ee haweenka ee la suurad xumeeyey ee la kitfay ee la baabi'iyey ee la jufay ee la sharay ee ma garanaysaa. xubinkaa mag baa ka waajibtay waa hore, oo magtaasi waxaa yidhi in loo raacdo waalidka iyo islaantii fulisay ama odaygii fuliyey iyo waalidkii ilmaha dhalay. yaa waxaa lagu leeyahay mag. shaaficiyadana qabta madhabkanagii kolkaynu u noqono. الشافعي كتاب الأم وهو كشاجي. وفي أحد شفريها إذا أوعب نصف الدية وفي الشفرين الدية. labada bishimooda hoose ee gabadha ee xubinka taranka ka midka ah ama ku hareeraysan bishimihiisaasi mid ka mid ah haddii la jaro waxaa ka waajibaysa diye badhkeed. haddii labadaba la jarayna diye dhammaystiran baa laga rabaa markaa inay bixiyaan qolyihii dalbaday jaritaanka iyo qofkii jaray. magtaa ma wax doontay miad arkaysaan weli meelna maku maqasheen wax mag bixiyey. للشفران للمرأة هما اللحمان المشرفان على المنفذ. وهلب كوها مركا لقى هذه بشماعة سبحانه waa hilib
ku hareeraysan oo ka lalmada ama ku dhegan ama ku hareeraysan ibta وفيه ماء كمال الدية كان waxaad ka helaysaan روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي الشافعي marka mag fara badan baa nagaga maqan dhulka oo gabdhahaasi ay leeyihiin mag dhamaystiran 100 halaad soo ma ahayn mise kontonley baad tidhaahdeen kaawaa baab kale iyo dood kale xertu isla rogrogi doonaan waayo kale laakiin hadda waxaynu ku jirnaa in magta ay ka waajibtay qolyihii lagu sameeyey bishimaha kore iyo bishimaha hoose iyo bishinta midig bishinta bidix la jaray ee xubinta taranka marka mag baa ka waajibtay cinda shaaficiyati iyo qof kasta oo garanaya wuxuun fiqiga marka gudniinka fidiisuba waa caada jaahiliya oo jiri jirtay islaamka hortii wayna isku dhaleecayn jirtay carabta sida saxiix albukhaari ku suganba markay isu soo baxeen uu yihi xamza bin abi aalib xamza bin cabdilmuطalib sayid shuhadaa kolkuu isu soo baxeen iisoo bax uu ku yiri ninkii ahaa sibaac car iisoo bax markuu ku yiri isu soo baxeen uu usoo baxay ninkii xamza uu usoo baxay xamza waa isagii ku caayide ee yihi ya sibaac ya bna ummi anmar muqaطicat albuduur kelimad nooca macnaha wuxuu yihi ina sibaacow wiilkii hooyadii umu anmaaray hooyadii ahaydow ee kitfi jirtay xubinta taranka ee haweenka ee kitfi jirtay gogoyn jirtay muqaطicat albuduur ee kitfi jirtay gogoyn jirtay iisoo bax marka wuu ku ceebeynaya waa dhaqan baas oo xun oo qofkii shaqo ka dhigtay in lagu gumeeyey ahayde oo la takooro la sooco la caayo sida hadda bukhaariga halkan ku cad haweenkii shaqo ka dhigtay waxaasi in la takooro la cambaareeyo la ceebeeyo sida halkan uu xamza uu ku caayay dee sibaac ninkii la dhahayay halkaas wuuna ku dilay dee uu kaga guuleystay laakiin dee hooyadii wuxuu yihi hooyadaadii gabdhaha waxooda kitfi jirtay way iskala weynaan marka inta kale dad yaw yar baa samayn jiray oo carabta waagaa joogtay meelaha ka mid ah الإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري اسمه حكوير العرب تطلق هذا اللفظ في معرض الذم أرجع عايدة قدنينك هوينك كصابسا ووحوها والسكو عيبين شري مركز إليهين مقطعة البذور ووحل اسكو عايبوها عند العربي انت واد فهمتين بخاري قد كردين إيشان مركز dhaqan xun wey oo jiri jiray islaamka hortii soomaaliduna caado fog weeyaan oo taariikhdeeda aynaan hayn kumanaan sano inay hayeen baan u malayn dowrinta abuurka alle waxaa ka mid ah laakiin de afrikaanka ugu jirta qurux oo halkii uu dee ibliis ku dhaartay uu yidhi wala aamurannahum فليغيرن خلق الله وان امر دونا اون امري اون ku dhaarani inaan fari doono oon ka dhaadhicin doona inay abuurka alle dooriyaan iyagu kolka ama qurux ha ku sheegaan ama ha ku sheegaan waa noocyo kale waxaa ka mid ah insaanka afrikaanka dhulka nagii joogay ama dhulka geeska afrika iyo geeska afrika oo dhan ba isku dar bulsho ka mid ah waxay jaraan bishimahooda dibnaha hoose way dilaaciyaan bade iyada dhan ilaa goobaabin camal ay ka dhigaan kuwana dhegah ayay jaraan de iyaguna duleela ay u sameeyaan waaweyn oo lalmada haraggii baa saa loo jaray oo dhan waxaasi marka waa
qurxin iyo caadooyin ay lahaan jireen insaanka afrikaanka ee geeska africa iyo meelo kalaba kaga noolaa. gudniinkana waa la mid, waa caado ee cibaado maaha. sida aad ku arkaysaan sawirada halkaa ka muuqda, mana banaanada insaanka intaa loo galo. kol haddii la yidhi xoolihiiba ha jarina. noocyada gudniinka la sameeyo ka jira dhulka laiska gudoo dhan 4 baa loo qaybiyaa. hadda aqoon-yahanada hadda jira say usoo ururiyeen. marka 4ta nooc sawirkoodii meeshii saaran yihiin waa iska sawir caadi ah. ka raali ahaada dadyaw haddii ay wax uun iska dareemaan, qaar baa gacmaha ku wate, raali ahaada. marka kan kore sunna lagu magacaabay. ka koowaad sunna waa in la jaro intaa yar say sheegeen. sunnana ma hadde sunna dee wax loo tiirinay mugta xaggii nebiga sallallahu alayhi wasallam. nebigana dee shaqa kuma le waxan. meel gabdhihiisa ku gudayna ma haynaanu nidhi, meel xaasaskiisii lagu gudayna lama hayo. kan labaad waxaan iskaga magacaabay gudniin Maasai, maadaama aanan anigu anaa la baxay dee wax jira ma Maasai, maadaama grade 2 maal dhaba ama type nooca laba gudniinka qaybtiisa labaad bay ku jiraan. dad ku farado dhuubanta way jiraan oo way ka hadli doonaan iyaga gelaya baabkan. baabkaygii ma aha, laakiin qiimahan diinta iyo waxoogaa taariikhda baan in yar yaan kabaya, ma garanaysa. oo micnaha waa noocaasoo bishinta iyo bahalkiiba cadkii xalaasha firiidka ahaba way jireen. fircooni Masaari ama fircooni Soomaali iyo cafarta iyo Soomaalidu waa hal qoys weeyo. fircooniga asalkiisa waxaan u malayn inuu qolyahan asal u yahayba. Masaariduna ay farac noqonaysa. taariikhda dib baynu ka keeni doonaa haddii aynu helno. laakiin waan tuhumsanahay ka ugu dambeeya Soomaalida iyo fircooniga waa kaadee tolan xubnihii la jaray, diyooyin fara badan, tagyiir khalq allahi way waxaan oo dhan waa maxay? macalkaas sunnada lagu sheegay waa abuurkii allah la dooriyey. ilaahay baa yidhi laqad khalaqna al-insana fi axsani taqwiim. ilaahay baa yidhi wasawarakum fa axsana suwarakum alladhi axsana kulla shayin khalqahu alladhi axsana kulla shayin khalaqah. marka waa sidaa. waxaan waa doorinta abuurka alle unbay gelayaan. sawirada arkaysaan kuwa saa u eg saaran dhabarkayga. marka insaanka waa la diiday in la jaraan oo niri jirkiisa la googooyo qaybo ka mid ah. hadduu meyd yahay xataa cadowgaagana allah ka dhige. sankiisa ma jari kartid hadduu dhintay. faryaradiisa ma goyn kartid. carabkiisa ma jari, bishimiisa ma jari, dhagiisa ma jari kartid. xoolahana sidoo kale ma jarjari kartaan iyagoo nool. nahaa an yumathala bidawaab. nabiga sal alla alayh wasalam waa horu sheegay xoolaha in la jaro jirkooda wuu diiday nebiga. ibliisna waa kii ku dhaartay falayubatikunna aadaana alancaam. dhagaha xayawaanka ay jari doonaan oy googoyn doonaan. sidoo kale in laga dhigto toogbarad shabaaxtan iyaduna waa la diiday, lama ogola. marka xoolihii baa saa loo ilaalinayaa aan caqliga lahayn. insaankii alle karaameeyey khaliifatullahi fi ardihi oo haddana al-untha oy kasii duwan tahay. dee cadkeedaas in loo dhawaadayey oo la diimeeyayey xartu way ka soo horjeedaa. xarago iyo isqurxin darteed buu afrikaanku waxa u samaynayaa inuu jirkiisa jeexjeexo wejiyada. bulshooyin baa jira Suudaan iyo meelaha lagu sheegay iyo meelo kasta oo Afrika ka mid ah waxbaa jooga wejiga turturqa oo nabro u sameeya deedna astaan muuqata sidaad ku arkaysaan meelaha. waxaasoo dhan waa maxay?
waa bahashii ibliis uu ku dhaartay uu ahaa insaanku abuurka alluu doorin doonaa. wejiguna waa meelaha ugu khatarsanaya insaanka. hilib dalqadaa ka mid ah dhaqamada aynu leenahay. yaa laga jaray intiinan meesha fadhida hadda cidna. waxaan rajaynayaa inaad hilib dalqadiinii wadataan. in la jaraa iyaduna dee waa caadooyin jiri jiray oo qaab caafimaad la marsiiyey ama loo ekeysiiyey. dhulalkan aynu joognay galbeedka ma arag wax ka murunsan jaridiisa iyo shaqo ka dhigashadiisa. malaha hilib dalqada iyo cadkaa yar ee gabadha ku yaala isaga ekaaday oo kaa kol haddii la jaray kana ma in la jaraa mooyi bal adba. guditaanka haweenka iyo waxaan nidhi waa caadooyin qadiima oo geeska Afrika ka jiri jiray kumanaan sano. taariikhyahan meelahan marayay oo kiristaameyn ka waday Portugiis ahaa oo la oran jiray Johanna Santos ayaa soo maray saltanadii Warsangeli. boqortooyo waa ka jiri jirtay geeska Afrika ayay ahayd 1609kii. halkaa marka wuxuu ku sheegay uu ku arkay dadyow caado ka dhigtay buu yidhi inay tolaan oy jaraan xubinta tarankii haweenka, gabdhahooda yaryar siiba iyo wixii markaa isagu addoomo uu ku sheegay. waa dhaqan jiri jiray buu yidhi oo qofka cifadiisa iyo dhowrsanaantiisay qeyb ka ahayd. soo ma garanaysaan? waa dhaqamo baas oo waagaa fog inoo jiri jiray. marka in la sii baaro waa muhiim. marka ninkaasna meeshuu ku maro waxaas uu arkay 1609kii bayna ahayd. marka xubinkan lagu yaacaya shaqada laga dhigtay waa doorinta abuurka alle baan meel looga maro ba lahayn. ilaahay baa abuurtay sii daaya. cabsina nagama aha dee qanaaca iyo baxthi iyo raadin bay naga tahay. nagamana aha irsaaqad ku raadin wax walba haddii la yidhaha irsaaqad. raggaa culimmada waaweyn ee qarnigii 3aad noolaa ee leh ma hayno khabarun yurjacu ilayhi walaa sanadun yutabac. qarnigii 3aad wey ibn almundir kolkuu leeyahay wax dhow maaha. qolyahan mayba ayn jirin ba hadda mashruuciyada ka dhigtay. hadday gadaal ka yimaadeen. marka islahaan dood qadiim awey oo jirta. laakiin qolyo iskaga irsaaqa doonay way jiraan. way fiican yihiin hadday iskaga irsaaqa doontaan maadaama abuurkii alle la doorin hayay. micnaha ay leeyihiin war ha doorinna abuurkii alle, insaankan u daaya wixiisa. wax fiican wey, wax fiican. qalabka lagu jaro cadka xalaasha ee haweenka sawirkiisa wixii dee qalabkii berihiisa inta haddana qofka ugu liitaa jarade sida caadiga. qof weyn oo gaboobay oo waayeel ama da aan cimro u lahayn. waxana waa xubin adag oo khatar ah oo qof qalliinka ku takhasusay oo in muddo ah kasoo shaqaynayay dee waxaan cilmigeedii leh. laakiin qof walba intuu iska qaato bir iyo sakiin yidhaaha anaa ka jaray hebla iyo hebla iyo oo loo safto iyadoo nafsigeedii weli ilaa hadday weli socotaa dee qarnigii macnaa anaga ku jirna 2021 weli inay saa dadkii lala dusayo la qaadanayo. laakiin wacyiba uusan jirin. wacyigaa baynu qayb ka nahay anagu. waxaan doorin karnoo badan ma jiraan oon ka ahayn in horta bal wacyiga lagu soo dhawaado kala duwanaanshaha ah iyo mas'alooyinkan iyo dhacdooyinkan iyo waaqica nagu hareereysan inaynu si ballaaran u eegno gees ka gees. sawirada ay dhawrkaade aad markaysaan meelaha ku sawiran islaan doonayso sakiin la ordayso gabar yar eryenaysa oo doonaysa inay ka goosato cadkii xalaasha ahaa insaankii karaamaysnaa lagu abuuray. waa meeshii taranka waxay doonaysa inay ka dhiijiso gabadha inay baxsataan rajaynaya oo aysan dib dambe u arag. halkaa wadamada Afrika iyo guditaanka haweenka waa caadooyinkaas jira. diimeynta waa inaynu ka daynaa haweenka. ka ragga kolkol baaba wax la iska weydiiyaa inkastoo ayna hadda muhiim ba ahayn. laakiin dee waxaynu leenahay caadooyinkan Afrikaanka ee gudniinka ku saabsani boqoleedeedii wata inta ku jirta.
sabuuradda ka eega Ethiopia keliya markaynu nidhaahno ama dhulkan waa geeskii Afrika kulli waa kuwa iyaguna Soomaali, Cafar, Hadiya, Waleyta, Sidaama, Guraage, Oromo, Amxaara, Tigray meel walba Soomaalida ugu sarreysatay soo martaan tirada Soomaalida meel walba korkiisii jirta wixii aan gafay aan ku khaldamay saxitaankeeda idinka leh wixii aynu waafaqnay aynu asiibnayna ilaahay baa mahaddeeda leh iyo xartii nagala qayb qaadatay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh